madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa wafdiga Xasan Sheekh waxaana soo dhaweeyay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne iyo qaar ka mid ah bulshada gobolka Hiiraan. waa kuwaan qaar ka mid ah dadkii soo dhaweynta ka qayb galay. waxaan leeyahay madaxweynaha hore oo Xasan Sheekh Maxamuud soo dhawaaw waa dalkaad ku dhalatay waa dalkaad wax ku baratay waa dalkaad wax ku baratood ku dhalatay lagaaga faalay maayo madaxweynaha hore aniga ducub laga soo doonay ducadayna Allah ha aqbal hortaan horay reer Beledweyne xogaa uqay u qabeen hadduu uqda ka bixiyana asaga uqdu waa ka bixaysa haddii uqdooda sii qabaanna midda dabaata waa sii ragaadiyaysa waa sii badanaysa iyadan waa idin salaamaya salaan kadib waxaan aad ugu hambalyeynaa horta dadkii qoraxda u istaagay madaxweynihii hore ee soo dhaweeyay saaki u kala shalay daraad u taagnaa mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ku leenahay u soo dhawaaw gobolkaadii iyo degmadaadii adiga iyo xubnaha aad hogaaminayso xildhibaan Cabdirasaaq ka mid yahay garabkiinana Allah galo inaan ku soo dhaweynay magaala madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inaan maanta ku soo dhaweynay magaalada Beledweyne oo gurigiisa ah ayaa maanta farxad weyn noo ah mudan madaxweyne adiga iyo wafdigaadaba soo dhawaada qalbi furan madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya haddana xisbiga gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka haddaan nahay reer Hiiraan anigoo magacayga iyo magaca gobolka Hiiraan ku hadlaaba waa soo dhaweynaynaa gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan aan ku soo dhaweynaynaa gurigiisii aan ku soo dhaweynaynaa gobolkoo ku dhashay oo ka soo jeeday oo dadkiisu joogaan ku soo dhaweynaynaa Hiiraan aan ku soo dhaweynaynaa Hirshabeelle aan ku soo dhaweynaynaa. sidoo kale waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uuna sheegay dhankiisa dadka reer Hiiraan guud ahaan gaar ahaan magaalada Beledweyne qaybaha kala duwan bulshada mas'uuliyiinta oo gudoomiyaha gobolka uu weyn yahay gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha degmada golaha dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyarada iyo haweenka iyo odayaasha dhaqanka ee sharafta badan dhammaan aad iyo aad ayaan mahad celinayaa soo dhaweyntii iyo kalgacaltooyadii iyo ixtiraamkii loo muujiyay waa ka mahad celinaynaa iska rabad waa ka mahad celinaynaa aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin intaas ka bacdi waxaan rabaa sida akhyaar badanna ay uga dhawaajisay Hiiraan dabcan gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya jira waaye wuxuu ka mid yahay dawlad goboleedka Hirshabeelle meeshaan dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo dawlad goboleed kasta oo laga dhisay jamhuuriyadda Soomaaliya oo ahdiga anaga aan joognay qabsoomay waxay ku bilaaban jirtay dib u heshiisiin ay ku bilaaban jirtay horta wixii hore u jira in laga heshiiyo haddana dhismahaas maamulka iyo wadadaas inta lagu socdo haddana in isku istaagtay in isriixday in muxuu ahay maryahooda isgaaraan lama waayin jirine marka u dambeysana waxa lagu soo gunaanadi jiray ama gadaal dambe laga sameey jiray dib u heshiisiin. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa la filayaa in dhowr cisho uu ku sugnaado magaalada Beledweyne waxa uuna la kulmi doonaa wadayaasha dhaqanka iyo madaxda dawlad goboleedka Hirshabeelle ee Beledweyne jooga. Sharmaake Cabdullaahi Daahir wararka Puntland TV magaalada Beledweyne.